lamaanihii dadka intay qashaan karsadaan oo cunaan kusoo dhawow sheekadeeda dhegeyso. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Manaal Dowley channelka aad daawanaysiin waa Manaal Production. Isku soo noqod wanaagsan muddo dheer ayaan isku kay dambeysay. Channelka aad daawanaysid waa Manaal Production. Haddii aad igu cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad igu soo birtid subscribe bani saartid comment-kaaga quruxda badan aad ii soo reebtid. Maanta waxaan wadaa barnaamijkeygii ahaa ila dhegeysa sheekadeeda tantaraan. Maanta waxaan ka sheekeynaynaa lamaane dadkii intay dilaan cuni jiray haddana karsan jiray ee dadkan oo siin jiray cuntadiisa cunto ahaan u siin jiray يعني waxaa jirtay Cannibal family Dimitri waxa waaye wiil ku noolaa dalka Russia and then asaga hooyadiis markii ay dhashay markii uu bilo yar jiray ay waxay geysay xerada ogoomaha deetana halkaas maadaama ay ahayd single mother waxay samaysay inay aysan korin karin cunugaas then way give up garaysay cunugeeda waxay iska geysay meesha agoomaha sidii ugu koro markii 3 sano uu jiray meeshaas waxaa ka watay lamaanihii isqabay ayaa watay 12 sano markuu jiray nolol wuxuu ku jiray farxad badan iyo hooyo iyo jacayl maamada aaday u jecleed badsan marka uu soo gaaray 15 sano maamadii way xanuunsatay kansar ku dhacay wayna geeriyootay waxa u soo horay odaygii korsanayay wuxuu noqday oday xun wiilkii wuxuu ku sameeyay dhibaato inuu diilo maaragtay inuu canaado inuu cunto u diido markii dambe wuu ceeriyay Dimitri wuxuu noqday qof iska darbi jiif markasta darbiyada iska aada muxuu ahaa meel uu saxdo male qof weyn ma sii aha 15 sano jira markaas waxbarasho muusan dhameynin then wuxuu sameyn jiray xitaa dariska inuu bariyo meel uu seexdo inay siiyaan then darisyadana markay adiga dhowr beri seexiyaan waxdhahan orinaga kuma rabna camal then wuxuu bilaabay jidka inuu iska jiifsado sidii ayuu ku koray darbi jiifkiisa iska ahaa Dimitri uu soo weynaaday kabacdi markuu soo weynaaday wuxuu bilaabay inuu meel maarkin construction uu ka shaqeeyo sida ay sheegayaan markii la wareystay dadkii uu la shaqeynayay wuxuu ahaa ninkan nin xirxiran oo maarkin oo dad dan rabin oo maxaa lahaa si uu dayacan oo maarkin kaligiis maskaxdiisa iskala sheekaysto markiisii horena wuxuu ahaa qof iska fiican oo maarkin xishood badan oo edeb leh markii maamada nooleed sidaasba umuu hadal badnaan jirin qof iska degan u ahaa laakiin traumatizer lagu sameeyay maskaxdiisii dhan uu ka dhexgalay odaygiiyaa soo waalay uu korsanayay deetana wuxuu sameyn jiray dad niyadiisa uu ka keensado uu la sheekaysan jiray instead of dad caadi runa inuu la sheekaysto then dadka coworkerskiisa aaday ula yaabi jireen dabeecadiisa then waqtiyadiisa ugu badan wuxuu ku bixin jiray inuu aado meelaha maaragta baararka cabitaanka inuu qamri iska cabo noloshiisa dhan wuxuu iska noqdo cabtooy wax saaxiib dhan ma uusan lahayn naag xataa lama uusan saaxiibin alle intuu kala kulmay maalintuu la kulmay Natasha iyadana waxay ahayd gabar waxay dhalatay Dimitri isaga wuxuu dhashay 1984 ayadana waxay dhalatay 1975 ogaa yaray ka weyneed bas and Natasha waxa hooyadeed iyo waxa kursadeen ayeedeed meel oo baadiye ahay kusoo kortay kabacdi iyadoo caruurnimadeedii hooyadeed geeriyootay kadib way soo weynaatay waxay noqotay kalkaaliso laakiin kalkaaliso waxay noqotay markii dambe nolosheeda ka dhacday Dimitri markii dambe wuxuu sameeyay baahidii iyo dhibaatadii horta hore markii ka badatay intii hore intuusan la gaarin macnaha inta constructionka ka shaqeyn waxaa dhacday mar oo maaragtay uu noqday tuug uu dukaamanka wax ka xadi jiray markii dambe dukaan dhacay baabuur banaanka yaaluu sii dhacay dadkii askarta waceen waa la soo qabtay isagii hal sano xabsi ku jiray then markii xabsiga laga soo daayay intuu xabsiga ku jirana cid soo boqon jirtay male maadaama uusan wax dad ee lahayn iyo wax saaxiib then markaas kadib waay wuxuu shaqadan uu bilaabay constructorka markaas wixii ka dambeeyay wuxuu sameyn jiray noloshiisa markuu shaqada ka soo baxo guri yar uu iska kireystay and then uu iska cabi jiray noloshiisa dhanba waxay noqotay cabitaan oo keliya nanka Natasha aan u gudubno Natasha markii ay noqotay nurse ayadoo uu shaqadii nurse-ka wado waxay baratay nin duuliye diyaaradeed ninkii duuliyaha diyaarad way isbarteen way isguursadeen markay isguursadeen waxay u dhashay wiilkeeda markay u dhashay isagoona socon bilaabin uu ka dhintay ninkii ayadana markaas nolosha dhan way ka
niyad jabtay markaas waxay noqotay iska qof ma arkin oo fudfudud oo iyada laftirkeeda waxay noqotay cabtooy inay mar walba ay iska cabto qamro natasha markii ninkii uu ka geeriyooday oo isku buuqday nolosheeda dhan waxay noqotay stress inay ma aragtay aysan kalsooni dambe isku qabin inaysan waxba qabsi karin waxay bedeshay dabeecadaheedii hore dhaqankeedii hore shaqadeedii everything yacni kala gedisay noqotay ayada dhan waxay isqaatiisay ninkeedii ka geeriyooday markii dambe wiil cunugeedii xitaa markay garanayso gurigeedii markay garanayso markaas iyada waxay degantahay ninkeeda guri uga dhintay ee wiilkeeda ku haysataa deetana markii dambe waxay sitray oo sidan si ma ahani dhakhtar ay u tagtay waxay tiri dhakhtar oo anigu waxaas kaga shakisanaa inaan waalanahay hal i baaray inaan waalanahay dee dhakhtarkii markuu baaray waxaa la yidhahda wax kaa qaldan malaha maskaxdaada way caafimaad qabtaa mana waalinid natalia ugu dambeyn nolosheeda waxay iska noqotay cabtooy iyadoo sideeda iskaga cabtooy ahayd ee waxay isbarteen ninkii dimitri ay isbarteen iyadoo maalin oo gurigeeda wax ka haleysnaa gurigeeda uu habeenayay gurigeeda markuu wax uga habeenaya adii dan laba cabtooy waa isku qalmaan labadooda way isbarteen noloshii wadaageen way wada degeen macnaha iyagoona isguursanin adiga boyfriend girlfriend gaaladaas ka taqaanaa way isla noolaayeen kadib markii muddo sidaas ku wada noolaayeen markii muddo saas ku wada noolaayeen 5 sano kabacdi ayay isguursadeen wiilkeedu way haysatay noloshooda waxay noqotay stable xoogaa dad waxay noqdeen at least markinu sidii hore dhaanto nolol xoogaa wanaagsan iskaga noolaayeen ugu dambeyn waxaa dhacay natalia waxay bilowday haddana qamri cabideedii inay kusoo laabatay all the time ay cabtooy noqotay salqaan every time wiilkeedii yaraa wuu koray nolosha wuxuu ka fahmay kabacdi wuxuu dareemi jiray ceeb inay dadka ku caayaan iskuulaadka hooyada dranker waaye waxba ma aha dan markii dambe cuniga u dulqaadan waaye ugu dambeyn waxay sameeyeen go-aan ay gaareen inay magaalada iska guuraan ee magaalo kale laga aqoon u guuraan dan magaalo kale usoo guureen magaaladii kale markay u guureen noloshoodii waaba kasii dartayba hell ay kasii dhin noqotay noloshoodii maalin maalmaha ka mid ah oo ay tahay September 11 ee 2017kii meel wuxuu ka shaqeynaya isagana constructor meel guriga la dhisaayo then telefonkiisu meel oga tagay ma ogi maxkalu kuma mashquula miyaa shaqo kalme adiga telefonkiisu meel dhigay then hadhowdii coworkerskiisa u maadeen dadkii la shaqeynayay then telefonkii mid qof helay qof oo meesha ka shaqeeya isagana sidiis kale uu shaqeeyo constructorka dhismaha then telefonkii markuu furay wuxuu ka arkay sawir ka yaabiyey uu ku dhex arkay wuxuu ku arkay ninkan oo gacan go-an oo dhiigaysa afka gashanayo mar sanka iska gelinayo mar madax go-an haayo ninka telefonkii dadkii kale usoo wacay telefonkii yaala cvpdii sawirka ka daran ayaaba sid qof jarjaran dhiig wax markii dambe nimankii booliska u waceen booliskii markay u waceen asagiina waa la qabtay naagtiisiina waa la qabtay labadooda laba qolaa la kala geliyey laba meela lagu kala wareysanayay naagtii aa la weydiiyey maxay tahay waxaa ninkaaga aan ku aragnay waxay tiri aniga waxba kama ogi surprise waxay iska dhigtay qof surprise oo la yaabo marka laakiin waa macnaha markii inkartay waa yani waxay noqotay askarta kuwii dambi baarista inay ka yeeli waayeen hadalkeeda ay cunto weyso si fiican loo baaray markii dambe xtirruuna idin sheegaya ani maalmaha ka mid waxaa ku arkay mayd telefonkiisa ku dhex arkay laakiin ani ismaanan ahay maydka oo wax isaga telefonkiisa u qaaday waxa u maleynaya wax kale uu meel kale uu macnaha si kale iyo google-kii meelahaas inuu ka keenay ay tiri ugu dambeyn booliskii waxay u tageen gurigoodii baaritaan laakiin maalintii gurigooda la tegay waxaa loo tagay gurigoodii oo maaragtay isku dhex dayacsan oo isku dhex daadsan oo wax walba meel wax kasta si kala yihiin meel walba dhiig ku taalo meesha oo cuntada lagu kuleeyo microwave-ka waxaa ku dhex jiray madax ay u maleynayeen markii hore burka inay tahay balse burka mahayn qof madaxiisa caadi u jaraynay ahayd fridge-ka waxaa ka buuxo hilib dad meel kasta jaaris maxaa lahaa كومبوينا جرو أو يكبحين دلوين عمل جالس وحال لها wax ma arkino sidii garaafo camal laakiin oo dhala camal oo dabool leh then wax kasta macnaha sidii baaquli oo kale ugu jirta furnijerka ugooda buuxday then waxay arkeen buug ay ku qoran tahay iyada qortay ay ugu qoran tahay sida loo kariyo cuntada bili aadanka insha Allah next time part 2 waxay ga dhamaaday